soo dhawaada khiyaaray meel kastoo dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka u dhaxeeya oramada iyo Soomaalida oo mar kale ka qarxay magaalada Diridhaba gabi ahaanba waxaa seefta galka kala baxay ururkii ONLF aqoon-yahankii geesiyaasha ahaa ee beesha Ciise ee weligood aan la gaban jirin hadalka runta uguna horeeyo ee maartaay halgama aadan allaale Diridhaba xaaladeedu cirka ay isku shareertay waxay maraysaa hub urursi Mustafa Cagjar oo la soo xiriiray odayaal ka mid ah odayaasha beesha Ciise iyo kuwa dawlad deegaanka oo taariikhda Diridhaba aad u yaqaanay ayaa wuxuu ku yiri ka gaabsada hawsha cirka ayay gashay hadalkii Abiy Ahmed ayaana colaadan ka dambeeyay Abiyo si indhala'aan ah oromizina u hadlayay ama oromuuma u hadlayay ayaa yiri Diridhaba waxay ahaan jirtay magaalo oromo TPLF ayaa saamiga siyaasadda Soomaalida ku soo dartay iyadoo bicagsi ay tahay in ay TPLF ku soo dartay sida ay taariikhdu qorayso ama Soomaalidu ay sheegeen madarga aqoon-yahanka ay sheegeen inay TPLF oromada ku soo dartay siyaasadda si ay ku qabso ku qadimaysa inay ayagu oromada ay keeneen oo horay wixii ka horeeyay tikrayga waqtigii ay ismaamulka ay ka dhigeen inuu weligeed maayar ka noqon qof oroma ayaa la xaqiijiyay oo taariikhdu ay qoraysa oo magaalada la dhihi jiray Diridhaba ana adu labada qabiil ee Soomaaliyeed Diridhaba iyo Gurgura ayaa la dhihi jiray magac labada qabiil baa radigi jiray ormo waaga booska kuma jirin sidoo kale afhayeenka ururka ONLF wuxuu sheegay inuuna qof Soomaali ah Eritrea ka dagaalgalayn oo odayaasha deegaanka qof walba ay wacayaan iyo jifa kasta garwaaskooda inay wiilashooda ka hor istaagaan in Eritrea laga horgeeyo dabkana ay galaan dagaal haddii la gelina deegaankooda ay difaacaan Ethiopia dagaalkan inayna ka badbaadi doonin sida ay maartaay saadaalinayaan ee dadka aadka u yaqaan amniga iyo xaaladaha dalku markuu nooca yahay uu colaada galo meelaha uu ku dambeeyo dalalka iyagoo gudahooda uu dagaal ka socdo dal dibadii dagaal ka gala inayna ka soo waaqsanin oromaduna ay go'aan ku gaadheen in ayna cid kale aadisaba cag soo saareen ayna ku dhawaaqayaan madax banaanida Ethiopia ka go'ayaan qodobadaas ayaan faaqidaynaa khiyaari barnaamijka sii sheer garay meel fogna gaarsiiya like to one muhiim barnaamijka ayay fogeynaysaa cadowgana guryahooda ayay ugu geeraysaa aynu u guda galno halgama aadan allaale wuxuu yiri Diridhaba cid soo gashay waa la yaqaanaa taariikhdeeda inay TPLF ni soo duldejisay oromo ay tiri meeshan ismaamul gaar ah laga dhigi ayadoo labada beelood ee Soomaaliyeed ee Ciise aan Gurgura ay ahaan jirtay labadaasi ay isweeda meesha ay ayagu ku morgeysan jireen inay TPLF ay ayadoo oromo wada qorshuhuna uu ahaa sidan maanta ay taagan tahay hadda ay oromadina ay magaalada dhexdeeda burad iyo tooriyo iyo qoriyaba ay urursanayso Soomaaliduna qaybteeda ay urursanayso hadda oo hadda cariya cara ay marayso ay aadan alaal wuxuu yiri barnaamijkii aanu ka digaynay waagaasi ee waaga tikrayga kala fadhiisanay inkasta ay qorsho waa inay Soomaaliya oroma islaayaan ayuu maanta Abiy mar kale boorka ka jafay Abiy wuxuu yiri Diridhaba dhul oromay ahaan jirtay magaalo oromiyay ahaan jirtay oo tikrayga ismaamul ka dhigay saamiga Soomaaliland soo geliyay bilcagsi meeshii ay ahayd oromo waxa soo geliyay tikrayga magaalo Soomaali bay ahayd oo ahayd magaalada ka tirsan magaalooyinka gobolka City ayay ahayd dhul Ciise iyo beesha Gurgurayna ahayd marka xaaladdu hadda meel adag bay marso urursi baa socda dhalinyarada beesha Ciise waxay wacad ku mareen in intuu qof ka nool yahay ayna Diridhaba gacan oroma gali karin Abiyna ay kala xigaan dagaal ay kaga xigaan Abiy ma la dhihi karaa marka maadaama uu yahay xukun galgalanaya xukun aad moodid ismaarta neef la gowracageeda kama leexdo inuu qorshahani uu oromada dabada ka riixayo oo dagaalka haddaba hatta liyu iyo oo waleeda u dhaxeeya oo qudhiga qayb ka yahay barnaamij ah in Soomaalida la dhaafiyo dhulkaas waa suurtagal barnaamijkan
qorshe uu abiy keenay oo uu ka dameeya afkiisa laakiin abiy axmed siduu mooday way noqon weyd abiy maanta wuxuu taagay ilaahu maxaa kaa hadalsiiyey sababtoo tahay hadduu sidan ka aamuso oramadan hoosta ka wada dhihi lahaa waxaa suurtagalay dagaalka in soomaalida lasoo riixi lahaa oo la cabsi gelin lahaa iyadoo shaatiga etoobiya loo isticmaalayo iyo jabhadihiina lagu soo kiciyey laakiin maanta beeshii ciise ee huruday ayaa kacday hadda da'yartii ciise hubka ayay urursanayaan diri dhabayna difaacayaan dadka soomaaliyeedna garab bay u yihiin dadka soomaaliyeed garab bay u yihiin halgama aadan alaal ayaa horkacaya dhalinyarada beesha ciise wuxuuna u sheegay beesha ciise hal qof inuu ka hadhin diri dhaba haddaad gacantiina ay ka baxdana afka abiina aad oga baxdaanna inayna dunida sii joogi doonin faraciinina uu baabi'i doono dhulka aad u leedihin dhaxalkan inuu dhulkan diri dhabaya oo ilaa axmed guray dhulkan ayagu ay lahaan jireen sidoo kale caddaani hirmooge ayaa ka hadlay caddaani hirmooge waa afhayeenka ururka wanalif laba qodob buu ka hadlay dagaalka eritrea waa uu ka hadlay dagaalka eritrea waa uu ka hadlay ayadana waa dul istaagaynaa diri dhabana waa uu ka hadlay diri dhabe abi waa beenaaluu yidhi waa beenaale aan waxa uu ku fadhiyo iyo miisaankiisa aan garanaynin diri dhabana magaalo soomaali yay sii ahaan doontaa aynana tahay hadda oromona maalmaha ka mid a laga saaraya halgankuna waa socdaa lagaga saaraya oromo sidoo kale macallin jaamacadaha jigjiga ka mid ayaa isna ka hadla oo beesha ciise u dhashay oo yidhi hadalkaasu hadalna farxad gelinay maa inkastoo lele saacadaas xabsiga ayaa loo taxaabayaa sababta mustafa cagjar ayaa odayaal badan soo wacay oo dabcayoon barnaamijka inay ka hadlaan wuxuu yidhi baa la yidhi kuna wargeliyey booliskii wax walba inaan laga hadli karin barnaamijka diri dhaba oo uu yahay barnaamij khatartiisa wata oo isku dhac keeni kara qowmiyadeed biloway kolley hadda already way bilaabatay maalmaha soo socdaan waxaa arki doontaan diri dhaba oo laisku dhex dilayo oo dhexdeeda maarata laleeyahay laba oromaa la dilay iyo laba soomaaliya la dilay jidkii baa go-ayo dhan walba way ka bilaabatay adeerka doon haddana dhaaqyadu way socdaan caddaani hirmooge wuxuu yidhi askari soomaaliyeed dowladda eritrea lama dagaalayo anuu arrintaa dood baan ka qabaa caddaani ciidanka deegaanka asaguma xukumo ma aha taliyaha booliska deegaanka ma aha wasiirka amniga ma aha madaxweynaha deegaanka mustafa cagjar baa ka taliya mustafana waa horjoogaha deegaanka oo ka tirsan xisbiga talada haya dalkaasi etoobiya b b wuxuuna ku shaqeeyaa awaamirta b b buu ku shaqeeyaa haddii maanta la 20 kun keen iyo haddii 50 kun keen la dhahaba waa uu ku qasban yahay waa uuna ku gowracan yahay inuu ciidamadaasi keeno haddana waaban ognahay in 20 kun ka badan la diyaariyey oo labada xere ciidan ee ugu waaweyn ciidanka deegaanka ee kuliyadaha ciidamadu ay ka soo baxaan midda garab case iyo midda degmada burqodba ay labadaba ay tababaro ciidan ka socdaan ay ku xareysan yihiin kumanaan daayartii dowladda deegaanka soomaalida oo xataa kuwa habeenkii inay baxsadaan isku day la toogto oo ciidamada ilaaladu ay toogtaan xeradan ciidan ee aadka u ballaaran ay toogtaan oo maalin kasta cagafyaal arkaad wax qoday iyo kuwa tababarka ku dhintayba ciidamadaasi waxaa leeyahay waa commandos yaa loo tababarayaa oo mid uu abiy dhahayay 15 kun ilaa 20 kun oo commandosa kusoo darsada militariga laakiin qorshe wuxuu eritrea in laga horgeeyo socdaan laakiin caddaani wuxuu leeyahay isagoo noo laab qaboojinaya hal wiil oo Soomaaliya ma dhaaqay walaa anu ma garanayo sida warka caddaani uu ku hirgeli doono caddaani waan ognahay deegaanka ma joogo caddaani Itoobiya uu ka soo tegay dagaal bayna iskugu hanjabeen qorshahooduna waa u gaar oo nalef laakiin sida ay ciidan deegaanka Soomaalida ku hor istaagayaan caddaani isaga la weydiinayaa idinkuna aragtiin ood ka dhiban kartaan kaana barnaamij share garay meel fogna gaarsiiya barnaamijkan inta ay ku soo gabagabeynayna inta barnaamijka ku kulmi doono waxaan kaga tagayaa sida ay nabadgelyo